يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وحكست oo dhacaya alle subxaanahu wa ta'ala dhankiisa ay ka qadaran yihiin waxyaabaha barnaamijkan ku aragnayna waa waxyaabo la yaab leh. mar aan aadnay Sri Lanka innaga oo dhex jibaaxayna kaymaha halkaasi ku yaala waxaan u hiilownay inaan aadno tuuladaasi ku taala halka kaymaha dhexdooda ah, laakiin se wadada loo maro ayaa ahayd mid aad u dhib badan. waxaana waajiba inaad marto buuraha geesahooda iyo weliba dhex bartamaha kaymahaasi. xitaa mararka qaar gaariga halka kula maraya ayaa halis geli kara. شوف جحور الحيوانات. dadkii ila shaqaynayay qaarkood waa ay murugaysnaayeen, lama yaabani midda maxaa yeelay meesha aan marayna ayaa halis badneed. laakiinse dhibaatadii ugu adkeeda nagu dhacdo waxay ahayd markii gaari kale nala wadaagay wadadii aadka u yareed ee ku taalay buurta dusheeda. wadadaasina islama mari karaan laba gaari ilaa si adag oo dhibaato badan mooye. haddii midkaanse waa labada gaariye oo qofkood qaldamo waxaa suurtagala in gaari kamida gaariyaasha oo buurta dusheeda ka soo dhaco kadibna uu gudaha ugu dhaco toga weyn ama waadiga. laakiinse alxamdulillaah waa ay noo suuro gashay inaan wadada ku marno si nabad leh. inagoo arrintaasi ku sugan ayaan indhaha ku dhuftay duq aad u weyn oo wadada ku socday oo weliba hitinayay. qofkii hawsheena kala waday ee nala socday ayaan ka codsaday inuu gaariga istaajiyo si aan odaygaasi ula hadlo. waxaa la yaab lahayd wadadaasi inay marayeen boqolaal oday iyo boqolaal qof oo kale. lama aanan hadlin, laakiin haddaan qof kasta la hadli lahayn waqtiga ayaa nagu dhammaa lahaa. laakiinse dareen ayaa ii soo jiidayay dhankiisa si aan ula hadlo waxna aan u fahansiiyo. wuxuu rabaa meel uu ka soo gato rooti, wuxuuna jiraa 81 sano. هنا 81 سنة. عمره 81 سنة. ايوه. وكم يحتاج يمشي الآن؟ إنه ولد meeqa daqiiqo ayuu u baahan yahay inuu wadadan ku jaro? adiga 2 kiiloomitir oo kale ayuu u baahan yahay si uu wadada u jaro rootigana u soo helo. waxaa la yaab leh inuu subax kasta soo baxo si uu u soo helo xabadaasi rootiga si uu ugu noolaado isagoo jaraya kiiloomitir aad u dheer. waa nolol aad u adag runtii. talow meequu ku noolaa? wuxuu ku noolaa 10 sano hadda ka hor. حال يمكن يعيش عليه الإنسان ومنذ متى؟ منذ عشرات السنوات. muxuu leeyahay gacantan ayaa xanuunaysa xogay aad ayuu u xanuunsanayaa. haa way xanuunaysaa miya? haa way xanuunaysaa. mas ayaana ka qaninay. mas ayaa qaninay miya? haa mas ayaa qaninay. waa dhibaato wallaahi, ilaahay ha u kaalmeeyo. waxaase la yaab lahayd odaygani wiilkiisa waa uu islaamay laakiinse isagu ma islaamin. mar kasta waxaan isku dayaynay inaan islaamka iyo diinta islaamka kala hadalno, laakiinse wuxuu ka cabsanayay inuu dhaafo waqtigii uu ku soo heli jiray xabadii rootiga ahayd. hana raaco annaga, gaariga hanala raaco, annaga ayaa soo siinayna rootiga uu u baahan yahay. hagaag run ahaantii mar kasta waxaan rajaynayay inuu islaamo. si fudud laguma bedeli karo waxyaabaha ay aaminsan yihiin odayaashu, laakiinse dhallinyarada waa ay bedeli karaan. oo haddaba sida daawanaysaan wiilkiisa ayaa islaamay laakiin isagu ma islaamin. oday da ah oo 81 sano jira oo haddana cagacad maalin kastana u soconaya inuu soo helo xabad rooti ah si uu ugu noolaado. wallaahi waa nolol aad u adag, qalbigana xanuunjinaysa. mucaamaladaada iyo la dhaqankaaga wanaagsan qofka waa ay saameynaysaa. salaamidaada aad salaamayso iyo inaadan ka sarreynin isaga marka aad tusidoba aad ayay u saameynaysaa. waxyaabahani oo dhan waxay ahaayeen hordhacyo u sii sahlaya in uu soo galo diinta islaamka. waxaan mar kasta isku dayaynay inaan u sharaxno waxa uu yahay islaam. u sharax in diinta islaamku tahay diinta kaliya ee Allah uu soo diray, in ay tahay diinta nafaraysa inaan caabudno Allah subxaanahu wa ta'ala. waxaan rajaynayaa in umrigiisa inta ugu dambeeda ilaa 81 sano jire inuu Allah gacnaheena uga badbaadiyo naarta insha Allah. ilaahay ayaana hanuuniya qofka uu doono. waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala ka baryayaa inuu qalbigiisa islaamka ku sharxo. waa sikimada iyo daqiiqadii ugu dambeeyay aan ugu yeerayno diinta islaamka. haddii uu naga aqbalano wallaahi waa khayr aad u badan masha Allah. walaalahayga qaata bishaaradan. خذوا هذه البشارة. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا
رسول رسول الله. الله. الله أكبر. الحمد لله أكبر. الحمد لله الله أكبر. والله لا يمكن. wallaahi ma dareemi kartid dareenka iyo farxadda na galay markii aan aragnay isagoo ku dhawaaqaya shahaadada. waxaadba u malaynaysay inaan ahaa wiilkiisii rajaynayay inuu odaygaasi soo galo diinta islaamka. maxaan u rajaynayay inuu islaamo odaygaasi? maxaa yeelay waxaan rajaynayaa haddii islaamnimadiisu wanaagsanaato in alle subxaanahu wa tacaala dhibaatadan adduunyada uu ugu bedelo raaxadii jannada. nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiid macnihiisu ahaa dadkii adduunyada ay dhibaatada aadka ugu badan ku haysan jirtay markii ilaahay jannada uu geliyo wuxuu weydiinayaa ibnu aadamow dhibaato ma ku soo martay? weligaa dhibaato ma aragtay? markaasuu leeyahay maya wallaahi rabbiyow weligay dhibaato ma aanan arkin. allaahu akbar. daalkii socodka, daalkii adduunyada, daalkii iyo rafaadkii dunida qofka ku hayay oo dhan waa uu hilmaamayaa. waxa uu ku hilmaamayana ma aha inuu bil janno ku jiray ama 2 maalin ama 1 maalin. waa hal mar oo naciimada iyo nicmada jannada la geliyo oo kaliya ayuu ku hilmaamayaa markuu rabbi weydiiyana ku leeyahay maya wallaahi weligay dhibaato ma aanan arkin. ilaahu noo sahal jannada sidaas ah. haddaba qofkii jannada hal mar la geliyey ayaa waxaas oo dhibaato ah ku hilmaamaya. bal ka waran qofkii daa'in looga dhigo oo weligiis iskaga jira jannadaasi. ilaahu xisaabteena noo fududay. ilaahu kitaabkeena midigta naga sii. yaa rabbi naga aqbal. aamiin.